aad iyo aad baan ay farxad gelinaysaa shirkan inaan ka soo qayb galo labadan guddiyaashan farsamo Soomaaliland iyo Khaatumo yaa shirkan lahaa waxaase waajib ah oo aan isla ogol lahay in dana aan wada leenahay danina waa seeto iyadana khasbaysa cidaan uga fasax qaadanaynaana ma jirto wada hadaladana way soconayaan waana laga gungaari doonaa ugu faraxsanahay mar walba madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo inuu mar walba koriyo hoosba u leeyahay dhaxal baan rabaa ummadana inaan uga tago idina qoliyihiina guddidu hawl baa inoo taala shirka dambe inta laga gaarayana dadkeeni intii rabta wanaag iyo midnimo iyo wixii la wada leeyahay goonyaha laga joogo la ikraah fi diin cid lagu khasbaya ma ay jirto waxay dantoodu tahay ilaahay idinka dhigay madax iyo mas'uul inaydan idinkuna hawsha aydan kama saxanaysaan waa ognahay kullukum raa'i wa kullu raa'in mas'uul an ra'yati taasa ina wada waa ballan inaanan waxlaala wixii ay nooga baahan tahay baanu yeelo inta cadowga nagu ah ee Puntland ay ka kowtahayna meel baan uga soo wada jeesanaynaa Puntland inta ay nabadayna ma moogin meel baan uga soo wada jeesanaynaa isuna naale in badan baa leena hoday in badan baa abtirsiina laabna loogu garaacay in badan baa waxaan dantayada ahayn naloogu frimbiga ama trumpetka naloogu afuufayay taa waa ka koray waxaan u baahanahayna kulli xamarna hadda waa maqlayay meela loogu damaashaadayay madaxweynaha cusub madaxweyne wuxuu u yahay xamar baa loo doortay waxaan ku soo dhaweynaynaa oo anigu aan ugu hambaliyay bal marba meel bay joogtaa horta bal xamar inuu ku aado